بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. habeen wanaagsan walaalayaal. Waxaa ka hadli doonaa laba mawduuc oo aad u muhiim ah. Labada mawduuc waxay kala yihiin haddaad riyo ku aragtid adigoo xanuunsan, riyada dhexdeeda waad xanuunsan tahay, caadi ahaana ma ahayn qof xanuunsan. Mawduuc labaad waxaa weeye haddaad riyo ku aragtid adigoo xanuunka bogsanay, caadi ahaana ma ahayn qof xanuunsanay. marka midaasan ka hadli doonaa. Haddii laakiin caadi ahaan aad tahay qof xanuunsan, midaa waxay noqon kartaa axaadiis nafsi iyo mawduucyo kale, video kale ayaan kaga soo hadli doonaa. Midda koowaad aan ka hadlaa waxaa weeye haddaad riyo ku aragtid adigoo xanuunsan maxay tilmaamaysaa? Adigoo caafimaad qabay haddaad habeen seexatid aad ku riyootid adoo xanuunsan, micnooyin badan ay noqon kartaa. Micnaha koowaad waxay noqon kartaa inaad tahay qof caajis badan, kaslaan waxay carabta dhahaan. Waxay kaloo tilmaami kartaa inaad tahay qof shaki badan, waswaas badan, shakiyo wax walba ka shakiyo, salaada, weysada, tahaarada, qofka u soo adeego kale, qofka gacmihiisa nadiif may ahayn, waxyaabaha yacni shakiga noocaas oo kale ku jira way noqon kartaa. Waayo sidiisaba waswaasku waa xanuun. Adigoo xanuunsan waxay kaloo tilmaami kartaa diin yari, daacadaadoo yar. Haddaad tahay laakiin qof multazam ah oo rabbigiisa adeeca oo haddan riyadaas aragto, laga yaaba inay dad munaafiqiin ah hareerahaaga ay ka dhow yihiin. Sidoo kale xanuunku wuxuu tilmaamayaa dembi dhaaf, xasanaad. Qofka mu'minka hadduu ku riyoodo asigoo xanuunsan riyada dhexdeeda, caadi ahaan uusan xanuunsaneyn, waxaa macquula inay ilaahay dunuubka dhaafayo, ajar badan iyo xasanaad badan siin doona, li'aanno sida caadi ahaanba ay u tahay xanuunka dembi dhaaf uu yahay. Qofka hadduu ku riyoodo asigoo xanuunka bogsanay, taa waxay tilmaamaysaa farxado badan, arsaaqad iyo barako. Waxay kaloo u tilmaamaysaa qofkaasayte inuu hadduu hataa ku riyoodo qof kale xanuunsan, hadduu riyo ku arka, waxay tilmaamaysaa inuu adiga ilaahay korbo kaa dulqaadi doono. Dadkaa weli guursanin, gabadha masbiilkaa weli guursanin, aragtida qof xanuunsanaa oo riyada dhexdeeda bogsanayo, caafimaadayo, waxay tilmaamaysaa farxado badan, waxay tilmaamaysaa korbo dhammaadkeeda, korbo kaa dhammaanayso. Waxay kaloo tilmaamaysaa guur, gabar wanaagsan inuu rabbi ku arsaaqayo, masbiil wanaagsan oo saalix ah. Qofka riyada arkaya haddii tahay gabar la qabo, waxay tilmaamaysaa haddii gurigeeda mashaakil ka jiray soo afjaranka mashaakilka, haddayna mashaakil gurigeeda ka jirin isbeddel nololeed oo aad u qurux badan ay u tilmaamaysaa. Cumuuman guud ahaan haddii loo fiiriyo aragtida caafimaad, mise adigoo xanuunsanaa caafimaadaya, mise qof xanuunsanaa caafimaadaya, aad ay u fiican tahay. Haddaanu soo noqdo guud ahaan waxay kaloo tilmaamaysaa mustaqbal wanaagsan, shaqo qofka ahaa shaqo raadis. Waxay kaloo tilmaamaysaa cilmi, yacni xanuun laga bogsanayo waa riyo wanaagsan. Hadday gabar xaamilaa riyada ku riyoodo, waxay tilmaamaysaa soo afjaranka xanuunada ay dareemayso, culeysyo badan iyo faraj iyo kurbooyinka dhammaanayo. Waxaa jira riyooyin kale lagu riyoodo oo ku saabsan jirkaaga, meel ku xanuunaysa adigoo ka bogsanay. Taana waa riyooyin aad u muhiim ah. Matala adoo wadnaha ku xanuunaado, ilkaha ku xanuunaado, caloosh ku xanuunayso kale. Taana waa ka soo hadli doonaa insha Allah muuqaalo kale. qaybta kommentiga ra'yiga igu reeba.